السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga Soomaaliyeed waa idin salaamaya meel kastoo joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qisadii waa qaybteedii labaad. Marka oorkii baan soo raranay, subaxii baan kasoo baxnay, duhuridii baa meel aan ku nasanaynay. Markii aan ku nasanaynay walaalkii markuu fikirayay aniga ma ogeyn, laakiin markii dambe oo waweynaanaan fahmay arrinta. Marka ilmaha markay geel raacaan ay ku aqliystaan ay kusoo dhex weynaadaan ilaa 10 jir ku gaaraan, waa ilmo aqli badan oo sidii qof weyn camal u fikirayaan. Marka nin kasta meel buu ku harsanayay oo la fariistay. Marka walaalkii meel gooni u fadhiyay, markastana waxaan dhahaa walaalkay waa u mahad celiyaa, khayr Allah ku siiyo. Baadiyii iga soo kaxeeyey, waxaan dhahaa khayr Allah ku siiyo. Markaan is aragna waxaan dhahaa walaalkay waa mahadsantahay. Marka walaalkay wuu ii yeeray, Khadiija kaalay baan u dhahay, waan u tagay. Marka qori allow run sheeg wax la dhahaa jiro oo geeda intii saas isku qasqasa la dhahaa mid ka soo saar. Ani kale qori allow run sheeg baan aqaanaa, qori ridna waa la dhahaa. Hadii Soomaalidu waa kala lahjadeysay u taqaana ma garanayo. Marka walaalkay qori allow run sheeg buu dhahay oo uu qori ridmay, mid buu calaamadaystay. Waxaan ogaan doonaa markaan meesha ka soo tagnay, waan wareysan doonaa waqti ka soo wareegtay, xilli ka soo wareegtay. Marka wuxuu yidhahay Khadiija qoryahan geedahan yaryar ma soo diyaariyay, mid ka soo dhex saar. Aniga mid baan ka soo dhex saaray, wuu ogaaday meel buu dhigtay. Haddana sidii buu isku qasay u maleynayaa, haddana mid kale ka soo saar buu yidhahay, haddana waan ka soo saaray. aniga hadii waxa laga wada ciyaar baan u maleynayay markaas waqtii Soomaaliya aniga ciyaar baan u maleynayay, laakiin shuu asay ciyaar ba ma ka ahayn, arrin buu la dan lahaa. haddana mid baan ka soo saaray. Mar saddexaad uu igu celiyay, wuxuu dhahay qori allow run sheeg buu kulay ka waday. baqtiya nasiib amay tahay maqaan. adiga haddana mar saddexaadkii asaga calaamadii uu lahaay baan kasoo aniga mid baan ka soo saaray, kulay ma ogeyn marka dambe aan fahmay. bes markii saddexda jeer aan soo saaray, go'aan buu qaatay. marka wuxuu dhahay wiilashii u tagay oo nala socday, wuxuu dhahay anaga waa noqonaynaa, anaga hooyadeena Kenya jirtaan aadaynaa buu dhahay. maxaa dhacay, maxaa go'aankaas hadda degdega? wiilkii weynaa wuxuu dhahay maxaa go'aankaas, anaga waa go'aansanoo waan baxaynaa, ratigan waan wadanaynaa, oo adeerkeen meel heel degan baan u geynaynaa. markaasuu ninkii wuxuu dhahay wiilkii nala socday, oo maa gadataan? wuxuu dhahay anaga waxa si loo gata ma naqaanee, aabaheena waan ka cabsanaynaa, waxaan haddaan waa gadanayna, haddaan dhaa waa nagala xoogi karaa. marka aabaheen xoolihiisa waaye, ma gadanayna, adeerkeen hebelaa u geynaynaa, asagaa u haynaya, anagana hooyadeena aadaynaa, gabadhaana hooyadeed ku simaayaa, hooyo u geynaya. aniga haddaan raba aan soo noqda ama say ilaahay ka dhigan bay noqon doontaaye. wuxuu dhahay Khadiijaan hooyo u geynaya. go-aanka ma gaarteen? haa waa gaarnay. ma ka noqonaysaan? maya. bes sidii aan kusoo baxnay, waa soo baxnay, beerihii baan kusoo noqonnay. alaab buu waday ratiga, oo mar hore biyo iyo waxbaa noo saarnaan jiray. alaabtii baa laga dhigay, rarkii baa laga dhigay, ratigii bas keligiisa soo haray markaan, oo waxba aan saarnayn. marka meeshii beerihii markaan kusoo laabanay, waxaan ugu imaanay meeshii ratiga xaafadii la geyn lahaa, ciyaalkii lahaa, adeerkeen ciyaalkiisii ayaan ugu imaanay oo beerihii abuuraya. bes markaa la suureystay, waxaa lahay anaga waa tagaynaayo, hooyadeena aadaynaa, Kenya aadaynaa aan dhahnay. marka ratigan waxaan dhahnay gurigiinaan geynaynaaye, yaa gurigna soo tusaaya. wiil baa dhahay anaa idin geynaya xaafadda.
sidii aan kusoo baxnay marka xaafadii baan ratiga keenay waan ka soo tagnay maamadii xaafadda lahayd baa noo duduceyso kheyr allah idin siiyo hooyadiin aada bayn dhahay qisadan waa qisadii labaad insha allah tan dambaan u gudbi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu